afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidanka booliska ay ku soo qabteen burcad shacab dhaawac iyo dhac ugu geystay qaybo kamid ah magaalada tan Muqdisho. Howlgalladan ay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay ka sameeyeen degmooyinka Dharkeelle iyo Garas Valley ee magaalada tan Muqdisho, waxayna gacanta ay ku soo dhigeen kooxo dhac ka geysanayay sida uu sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lahaa shabakad dadka dhacda ayaa waxay muwaadiniin Soomaaliyeed ku dhaceen gudaha degmada Dharkeelle. waxay qaateen mooto ayagii oo moobeeladii iyo agabka ay dadka ka dhaceen wata ayaa waxay galeen degmada Garas Valley. ciidanka booliska degmada Garas Valley ayaa daba galay. degmada Garas Valley waxay ka dhaceen gaariga idin muuqda oo yarka ee xamaaliga. gaarigi markay dhaceen waxay si toos ah u la galeen deegaanka ceelasha biyaha oo ay rabeen inay ku dhuumaaleystaan. gaarigi markii ay taargadii booliska baafiyeen lagu daba taagnaa ay dareemeen inaysan dhaqaaqi karin, waa ay ka tageen gaarigi. haddana waxay gaari labaad ka soo dhaceen ceelasha biyaha. waa gaarigaas labaad oo idin muuqda. waxay ka soo dhaceen ceelasha biyaha, waxay soo aadeen degmada Dayniile. waxay halkaa ayadana ku soo aruursadeen moobeelo gaaraya ilaa iyo 6 moobayl oo ay dadka ka soo dhaceen. sidoo kale waxay ka dhaceen maadaama ay tuuto wateen muwaadin Soomaaliyeed oo sifo sharci ah ku watay bistoolad, ay bistooladii ka dhaceen. bistooladii ay ka dhaceen ayay waxay ku dhaawaceen muwaadin kale oo Soomaaliyeed. dhammaantood labadii ruux iyo laba kale oo kalkaaliyaal u ahaa afartooduba gacanta lagu soo dhigay, waxayna ku xiran yihiin saldhigga oo hadda aad u jeedaan. maxaabiistaas ay ka mid yihiin saldhigga ku xiran. sidoo kale ciidankaas markaan weydiinay taliskooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay noo cadeeyeen in muddo 3 bilood ah baadigoobkooda lagu jiray baafinna saaran tahay. taa waxay xaqiijinaysaa in ciidanka qaarkii ay iska sheeganayaan magaca ciidanka ee aysan ahayn kuwa u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sababtoo ah sifo sharci darro waxay uga soo baxeen difaacyadii xarumihii ay ku qornaayeen magaaladan. waxay u soo aadeen dhac bareera. taasna waxaa tallaabo ka qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ruqseeyay dhammaan dambiilayaashii dembiga geystay. sidoo kale waxaa isla degmadan Dharkeelle gudaheeda waaxda shanaad dhac ku geystay 2 ruux oo ka tirsanaa jiray xoogga dalka Soomaaliyeed, horeyna looga ruqseeyay. waxayna dhac u geysteen 4 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah. waxayna ka dhaceen moobeeladii. waa moobeelada idin muuqda halkan yaala. waxaana gacanta lagu soo dhigay habeen hore. isla ayagiina waxay ku jiraan xabsiga degmada ama saldhigga, waxaana loo gudbi doonaa maxkamadda awoodda u leh. sidoo kale dhacdadaas markii ay dhacday ciidanku ay soo qabteen maxkamadda horgeynta intaan la